إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. walaalayaal waxaan ku soo jirnay barnaamijkii qisaska qur-aanka kariimka ahaa. qisada maanta aan qaadanayna waxay tahay oon tilmaamayno qisadii waliid ibn al-Mughiira oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay fii suurati al-Muddathir. waliid ibn al-Mughiira wuxuu ka mid ahaa odayaashii reer Qureysheed, odayaasha la taageersan yahay, odayaasha la maqlo oo warkooda la qaato, odayaashooda maalqabeennada ah, oday ilmo badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey, wiilal badan ilaahay uu siiyey, laandheero ah ayuu ahaa. wuxuu ahaa nin ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinkaas uu u galay oo dhan kula dagaalamahayay dacwadii nebiga sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamkiisa iyo nebigiisuu kula dagaalamayay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa siday kutubu taariikh ama kutubu siyar ay sheegayaan, ayaa waliid ibnu mughiira ayuu nebiga dhegaystay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. markaasaa wuxuu yidhi, ninkan wuxuu sheegaya gabayna ma ah oo gabay waan aqaanaa, shaacirna ma ahan, hadal ma taqaanaaye jinnina ma ahan. qur'aankii buu la yaabay oo la cajabay. markaasaa magaaladii iyo dhulkii oo dhan waxaa la isla dhex maray oo magaaladii gashay ninkii waliid ahaa. maxamed buu raacay, diintiisuu qaatay, warkaasaa suuqi galay. odayaashii Quraysheed warka isagaa markay maqleen waa hadal filan waa buu ku noqday. waxay sameeyeen marka way fadhiisteen. maxaan ka samaynaa arrintan la sheegahay, seen ku xaqiijinaa? Abu Jahal baa wuxuu yidhi, aniga aqaano, aniga igu daaya, anaa warka keenay. Abu Jahal wuu orday, wuu tegey, wuxuu u tegey waliid ibn al-Mughiira ayuu u tegey. markaasaa wuxuu ku yidhi, waliido, tolka xoolay kuu uruurinayaan, sadaqay kuu uruurinayaan. markaasuu yaabay, ma aniga tolkay wax ii aruurinayaan buu yidhi. aniga anaaba maalqabeen ah, anaaba ugu hanti badan, xoolaha aniga la ii aruurinaya maxay? markaasaa waxay dhaheen, wuxuu yidhi Abu Jahal oo waliid uu ku yidhi, warree tolka waxay sheegahayaan inaad u gashay Muxamed, cunto iyo quudna aad u raadsatay ayay tilmaamaan. saa darteed ba xoolo kuu uruurinayaan si aad uga kaaftoonto oodan u tegin oodna u raacin. markaasaa wuxuu yidhi, tolkii ma waxaasay ku sheekaysanayaan? wuxuu kale oo u sii raaciyay Abu Jahal oo yidhi, warka suuqa kuu galayna sidaad kaga saari lahayd iyo wixii aad kaga jawaabi lahaydna adigaa lagaa rabaa. weliig waa fakaray, iga tag, anaa aqaano waxaan dhahay, waan ka soo fakarayaa, iga tag. Abu Jahal waa ka soo tegay, wuu fakaray. weliid wuxuu ku fakaray warka suuqa galay oo ah, ninkan wuxuu sheegahay shicirna ma aha, kaahinna warkiina ma aha, saaxir warkiina ma aha, waa hadal rabbi oo sax ah. waxa uu ninkan uu sheegayo waa nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu ka wado moogtay. markaasaa wuxuu yidhi, okay, iga tag buya Abu Jahal oo anaa ka soo fakaraya. wuu fakaray, indhuhu isdaba dhigay, maskaxduu rogay, wuxuu go'aan ku gaaray siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga qisaynaya, innahu fakkara waqadar faqutila kayfa qadar, inuu yidhaahdo akhiiran waa saaxir hadalkii, waa sixir uu ka soo guuriyey dad kale. sababtoo ah buu leeyahay, yufarriqu bayna alrajuli wa imra'atih wa bayna alakhi wa akhiih. labada isqabtuu kala geeyaa, labada walaalaha kala geeyaa. waa sixir.
markii dambe sidaas tii ayada ahayd baa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo tilmaamahaya qisadina waa tan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku bilaabayaa oo uu noo tilmaamaya waliid ibnu lmugiira nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u daray asagoo keligii inuu ilaahay abuuray inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana xoolo siiyey inuu haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala maal fara badan uu siiyey nicamkaasaa lagu bilaabaya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi darnii iga tag aniga iyo waman cid khalaqtu aan abuuray waxiidan asagoo keligii oo wajacaltu aan u yeelay lahu asaga maalan xoolo aan u yeelay mamduudan la taagay yani xoolo badan aan u yeelay waa nicmo laba oo iyo wabaniina wiilalna aan u yeelay shuhuudan oo xaadir ah oon ka tegaynin la joogo dhinaciisa taagan waa nicmo saddex oo wamahadtu aan u goglay lahu asaga aan u fidiyey aan u goglay tamhiidan goglid yacni xoolo fara badan oo waasic ah oo kaiir ah inuu ilaahay siiyey baa lagu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala nicmooyinkaa loo galay kadib uma yaطmac wuxuu damcayaa intaa kadib an aziida inaan u ziyaadiyo damcaya oo hunguri ka haya kallaa buy alla subxana wa tacaala kadjoog innahu weliid kaana wuxuu ahaaday liaayaatinaa aayadahanaga caniidan mid ku madax adag mid beeniye dafiray saurhiquhu ilahi subxana wa tacala haddana wuxuu tilmaamaya jazihiisa ninka asaga ah oo intaa isku darsaday jazihiisa iyo abaalkiisu ilahi subxana wa tacala tilmaamaya wuxuu yidhi saurhiquhu waan dabooshiin doonaa sacuudan cadaab mashaqale ayaan dabooshiin doonaa innahu weliid ilahay baa noo tilmaamaya subxaanahu wa tacaala fakkara wuu fakaray waqadara wuu qadaray hadduu fakaray yuu haddana wixii uu ku fakaray buu haddana qiyaasay oo jaangooyey faqutila waa la nacladay kayfa sidee buu qadaray naclad ilaahay ku dhacdee see buu u qadaray uma kadib qutila waa la nacladay kayfa sidee buu u qadaray uma nadar kadib wuu fiiriyey wixii uu ku fakaray oo uu qadaray buu fiiriyey weliid uma cabasa kadib wuu weji tubay wa basara wuu weji tubay wejigu kaduuday uma adbara kadib wuu daba jeediyey iimaankiibuu ka jeestay wastakbara wuu iskibriyey itibaaci iyo taacadii iyo hoggaansankii nebigu u hoggaansami lahaana waa karkiisa ka santaagay faqaala wuxuu yidhi weliid in haadaa kan ma ahan waa qur'aanka ilaa sixrun sixir mooye wax kale ma ahan sixirkaasoo yu'haru la soo guuriyey sixir la soo guuriyey asaatiiru alawaliin weeye saasuu leehay sii wada in haadaa maa haadaa kan ma ahaanin ilaa qawlu lbashar bini aadan hadalkii mooye wax kale ma ahaanin buu leehay allah subxana wa tacala haddana mar labaad abaalkiisa iyo jazihiisu noo tilmaamaya sausliihi buy alla subxaana wa tacaala waan gelin doonaa saqara naarta saqara la yidhaahda ayaan gelin doonaa ninka sidaan qur'aanka ku tilmaamay sixir ku tilmaamay qowlulbashar ku tilmaamay jahannamo saqaraan gelin doonaa wamaa adraak maxaa ku ogeysiiyey maa saqaru saqara waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey arrinkeeda ayaa la weyneeyey ilahay naga badbaadiso laa tubqii saqaradii baa naloo sii fasirahaya laa tubqii ma hambayso walaa tadar waxna kama tagto yacni qofkii la geliyo hilib iyo xidid iyo laf midna ma reebto kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan gayrahaa liyaduuqu alcadaab ila allah subxaana wa tacaala lawaaxatun mid gubid badan weeye saqaradu lilbashar lawaaxatun marka waa khabar hiya saqaradu lawaaxatun
gubid badan weey lilbashari jirka calayhaa naarta dusheeda waxaa ahaaday saqara 19 17 malag baa ahaa sidaasuu ilaahi subxaanahu watacaala ayuu noogu tilmaamay waliid bin muqiira iyo qisadiisii walaalayaal qof kasta oo ilaahi subxaanahu watacaala kalaamkiisa ku tilmaamo ee makhluuq inuu yahay ku tilmaamo inuu wax kala yahay ku tilmaamo sida firaqa qaarkood waxaa weeyaan abaalkaana koyta u yahay ninkan gaalnimadii wuxuu ku sii darsaday gaalnimo kale oo ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisa uu ku tilmaamo inuu yahay qowlulbashar inuu yahay sixrun yu'thar inuu yahay marka firaqa qaarkood ayaa meelahan ku lumay oo dhaheen qur'aanku waa makhluuq ya arrintaas نسبة إلهي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم